السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ahay Mr. Kilimantan haddii ay tahay markaa ku horeyso soo boqoto waad ku mahadsantahay booqashadaada YouTube-kayga ayaantan kor ayuu u socdaa qof kastoo subscribe saara share garay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay taxanaheeni maanta duu ilaahay gaarsiiyo waxaan ku qaadan doonaa duurkan u jeedaan iyo barwaaqadan iyo waxa way nimcadan ilaahay oo na siiyay roobkiya da'ay jawigu waa jooro marka taxanaheeni maanta haddii aad soo dhageysateen malayga iyo geela iyo bajaajley iyo baaskiliya haddaad soo dhageysateen maanta waxaan ka dhigaynaa looda iyada waxeeda ma badno waa 1 2 3 waa ka sheegana insha Allah looda hadii 1 2 ka sheegna ama afarta qodob ugu muhiimsan ka sheegno looda waxay kamid tahay looda nimcada ilaahay uu siiyay xilliyada ugu fiican oo ay nolosheeda ku jirto waxa kamid ah xilliyada roobka uu da'ay oo barwaaqo ay jirto xilliyadaas looda waa la sii daayaa ka bacdina habeenkii iyada gurigeeda ku soo noqonaysa xitaa ma u baahno qof inuu ilaaliyo oo uu maanta uu sii daba taagno ma u baahno sidoo kale looda waxay ku fiican tahay xilliyada beeraha balka ama baadiyaha laga soo laabto iyada bas israacdo oo qof kale minaha ma sii wadi karo haddii aan ka hadlo dhanka waraabiska looda sidaaba 2 maalin ilaa 3 maalin ka badan biilaan ma sii aan karto waxyaabaha haddii 3 maalin biilaan si aad oo iska fadhiisanaysa oo ma dhaqaaqi karto waxa waa GPI wax soo saarka looda waxa kamid ah haddii faa'iidada ilaa dan ka hadlo wax soo saarka waxay soo saartaa caano deeka oo nadiif oo badan ka bacdi waxa laga soo saaraa oo kaliya subaga oo ilmaha madax loo mariyo ama suuq la keeno badana caanaheeda lama isticmaalo laakiin dadka qaarkii caafimaad ahaan ay u isticmaalaan waa ma badna laakiin sida caanaha geeli iyo ariga loo isticmaalo looma isticmaalo saaxiibayaal marka aan looda waligeey ma soo raacin intaan ka aqaano waa intaan meelaha xog aroore markaas meel aan helan waa intaas afartaas qodob ugu muhiimsan haddii ay markaa ku horeyso aad soo boqoto gurigu waa gurigaaga soo dhawow subscribe saartina shirkay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ahay Mr. Kilimantan ciao laakiin internetka iyo somtal glass badanaa ka jiro sidaa daraadeed geedaa saaranahay degaan iska leersooyaa jawi baa isacan yahay maanta waa jimco khamiiskii ka wataa akhbaarka ugu dambeeya haddaan idinka dabageeyo ninkii amagtaaniya qorqor lee jiray waxaan leeyahay nolol iyo geeri aan ku soo qoraa midkii ahaataba gabargadirtan waxay leeyihiin ninkaan waa difaacanaynaa kursigiisa waa difaacaynaa haddii kaariya axmed kaariya qorqorna taabtana annagaana taabtay muqdisho meel ku qalbaxay taayihiin marka axmed kaariya qorqor ma noqon doonaa lafta gale camal mise qof caadi oo dawladdiisa gees ka raaco oo wixii loo diray yeeri kara uu noqon doona ama waxaa kursigiisa ku difaacan doona doorasho ayuu qaban doona maxaa ka soo kordhi doona mudaharaadka hadda ay ballamiyeen sharciinta mucaaradka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta joog waa degan yahay dalxiisaa iska soo aaday waxaa joogaan meesha joogmaba sheegay waa idinku boodaan oo hadda carfaantiin صاحب يا المانت جوا دقيقة ماشاس أو جدا لا جوا صاحب أنت اسك قياس ماشان فيري اسك قياس تات ماشان تواي أبا عبسي والله بالله ماشان قف كيلو قفت عيال غير جوكت صاحب ما حاله هو بحنا فيري ماشان فيري halkaas ay taageen ya akal ciyaartii la qabanay marka saaxiib yal quraad hadday dhacday salaada maqrib la joogaa masaajidka u soconaa quraad ma loo jeedo horta marka waa loo jeedo saada la arkaa إيجاي هذا قرآن أركاي أنت كبعده إيجاي وات سمجدينه فيري مقد مركي كشوك هواي مجدين هذا مقد يا كجرا ديانا هاي مقد كجرا مركي قرآن هذا ويدعي سها مخرب كيلا جوانو قوليش صاحب يال إبا شانا